Laba ka mid ah xulalka ugu xooggan Yurub, Portugal iyo Spain ayaa ku kulmi doona wareegga 16 ee Koobka Adduunka sanadka 2026, kulan si weyn loo sugayo. Portugal oo hogaaminaya Roberto Martinez ayaa si dirqi ah uga soo gudubtay Croatia kadib guul 2-0 ah, halka Spain oo tababare u yahay Luis de la Fuente ay si raaxo leh 3-0 uga soo adkaatay Austria. Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee marxaladda bug-baxa Koobka Adduunka kulankii Croatia. Inkastoo markii dambe la bedelay, Croatia waxay moodeysay inay heshay gool barbara ah daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta, balse VAR iyo tiknoolajiyadda kubadda ayaa xaqiijiyay in weerarkaas uu ahaa offside. Guushaas waxay Portugal siisay fursad ay ku sii wado rajadeeda Koobka Adduunka, halka halyeeyga Croatia Luka Modric uu tartanka ka haray. Portugal waxay sidoo kale jebisay rikoor soo jiray muddo 60 sano ah, iyagoo markii ugu horeysay tan iyo 1966 ku guuleystay kulan Koob Adduunka ah iyagoo markii hore laga hormaray gool. Si kastaba ha ahaatee, Portugal waxay dhibaato kala kulantay wareeggan sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo laga reebay wareegga 16 Koobkii Adduunka ee sanadkii 2010 iyo sanadkii 2018, sidoo kalena laga saaray Euro 2020. Dhanka kale, Spain waxay 3-0 uga soo adkaatay Austria ciyaar aad u wanaagsan. Michael Oyarzabal ayaa dhaliyay 2 gool, halka Pedro Porro uu 1 gool ku daray. Spain ayaa markii ugu horeysay tan iyo 1994 dhalisay 3 gool kulan bug-bax ah oo ka tirsan Koobka Adduunka. Xulka Spain ayaa sidoo kale noqday mid ka mid ah labada xul oo aan weli wax gool ah laga dhalin tartanka, waxaana ay difaacooda adag noqday hubka ugu weyn ee ay adeegsadaan. Taariikh ahaan, Spain ayaa ka sareysa Portugal kulamadii ay wada ciyaareen, iyagoo laga adkaaday kaliya 7 kulan oo ka mid ah 41 kulan. Si kastaba ha ahaatee, Portugal ayaa rigooreyaal ku garaacday Spain finalkii UEFA Nations League ee sanadkii 2025. Cristiano Ronaldo ayaa mar kale hogaamin doona weerarka, inkastoo Gonzalo Ramos uu qaab ciyaareed cajiib ah ku jiro. Waxaa jiri kara tartan u dhexeeya Pedro Neto, Bernardo Silva iyo sidoo kale Francisco Trincão oo ku aadan booska garabka midig. Kulankan waxaa la filayaa inuu noqdo dagaal adag oo khadka dhexe ah, maadaama labada xul ay jecel yihiin inay kubadda haystaan. Spain ayaa ilaa hadda leh difaac aad u adag oo aan weli wax gool ah laga dhalin, halka Portugal ay ku tiirsan tahay khibradda Cristiano Ronaldo iyo hal-abuurka Bruno Fernandes.